nin hantiila ah ayaa baqdad andaris ku ahayd ubadna aan lahayn hal wiil buu ubad ka lahaa wiilkii duq ooma eko nin xaafadda degan baa lagu tuhumaa uu egyaa wiilku odayguna oday waayeena weeye wiilla kaasuu ka haysta maalinkii dambe anoo socdaan isku soo baxay duqi oo socda markaasuu yidhi yaan iswaraysanay xaggeed u socota wuxuu yidhi sanadkan waxaan rabaa inaan xajiyo wiilkaygana aan kaxeeyo oo maxaad rabtaa wuxuu yidhi ujeeddada u weyna xajka aan ka leeyahay waxaa ka mid a ujeeddooyinka waaweyn waxaa ka mid a inaan nimanka reer bani mudaj aan helo maka lagu kala baxo wiilka loo bandhigo qaa'if hidisooca ah ma anaa dhalay mise waa lay dhuumiyaan ogaado abu isxaaq marus waxaa idhi wiilkanaad ka leedahay nimankan qaafada waa niman imtixaana dadka way kala saaraan waxaad yeeli waad asturan tahay islaantaadii wiilkaada iska hayso orod adigu xaj wiilkana faraha ka qaad maya buuli waxaa jirta inaan maka istaago reer bani mudajna aan kala baxno masaas ahaa farahan ka qaaday buu xajiyey wiilkiisii buu la tegey ninkii lagu tuhunsanaa ilaahay amarkii qolyaha xujaajta sacuuba ku jira rufaqadaas ku jira waa la maka la tegey ayaan anagu duurka u baxay buuli wiilkii iyo ninkii lagu tuhunsanaa iyo duqay kale iyo rag fara badan oo jamaacada socotay ah baa la dhex fadhiisiyey nin qaa'if oo reer bani mudaja loogu yeedhay waxaa la yidhi wiilkaa ninka dhalay soo saar wuu fiiriyey wuxuu yidhi wiilkan inta fadhida midna ma dhalin buuli kii lagu tumayaa ku jira wuu fiiriyey kii lagu tumaya dhex fadhiya wuxuu yidhi ninna ma dhalin buuli wiilka yaa odaygii dhalay wey ninka bannaanka u baxay haye qolyo cusub baa la keenay wiilkaa la dhex fadhiisiiyey reerkao dhan xaafadihi wuxuu yidhi ma dhalin kuwo kale ma dhalin saddex markuu kiciyey yaa odayga loo waxaa war wiilkii meel la saar la la'yahay ninka qaa'ifka inuu weli taagahayaay baynakee asagii baa hal soo fuulay awal watay uu soo gaadiidsaday oday weyn oo addoon ah oo aabbihii uu lahaan jiray oo aabbihii uu ka dhaxlay baa ritiga ku wada oo ku hogaaminayay ninkii meel la saar la la'yahay ninka qaa'ifka inuu weli taagahayaay baynakee asagii baa hal soo fuulay awal watay uu soo gaadiidsaday oday weyn oo addoon ah oo aabbihii uu lahaan jiray oo aabbihii uu ka dhaxlay baa ritiga ku wada oo ku hogaaminayay ninkii qaa'ifka aayay hidisoocay reer bani mudlij ee wiilka dul taagnaa markuu saa ninka u soo baxay ritiga saaraa iyo addoonkii weynaa waayeelka ku hogaaminaya wuxuu yidhi allahu akbar wuxuu yidhi alraakibu abu hada alghulaam buuri waqaa'idu albaciiri abu alraakibi buuri balaa baa ka dhacday wuxuu yidhi allahu akbar buu yidhi wiilka hadda intaa laigu wareejinaya aabbihii waa kaa ritiga soo saaran buuri nimanku imtixaan bay baasha ku reer bani mudaj maskax ilaahay siiye wey ma aha cilmi la barta ma aha waa hibo wuxuu yidhi alraakibu wuxuu yidhi waa abu hada alghulaam ninka ritiga soo saaran wiilkan aabbihii weeye buuri hawsha caddaatay wuxuu yidhi laakiin gaadiidka ninka saaran ee soo socday wiilka dhalayna aabbihii waa ninka hogaaminaya buuri addoonka weyn ee ritiga wada ayaa ninka ritiga saaran dhalay buuri odaygii xaajiga ahaa wuxuu intaan suuxay baan dhacay fa waqactu makhshiyan calayh balaa baa ka dhacday soo ma muxuu raadinayay wiil buu rabay inuu saxdee asagii baa la saxoo lagu foofay odaygii markuu miirsaday adugu biyo lagu shushubo miirsadoo kacay oo xajkiisa dhammaystay buu noqday baqdaad buu ku noqday markuu baqdaad ku noqday buu hooyadii dhuunta ku dhuxooyey haddaan run ii sheegin waa la kala baxaaya nin qaa'if hoyda sooca ayaa caddeeyey wiilka inaan dhalay oo carab way samirtay wiilkanaa dhalay laakiin anigu wuxuu yidhi odayga addoonka ee hebelay weynaa anugu aan dhaxlay aabbahay ka dhaxlay baa ku dhalay warkaa meel saar buuri doqdi waxay tiri waxba haydiinin run baan kuu sheegayaa aabbaha oday waayeela oo qad balaqa min alkibari citiyan buu ahaa waabaan isku dhacnay markaan isku dhacnay buu 3 dalaqad bay igu furay markuu ii furay ayuu ka qoomay haddana furitaankii inuu isoo ceshado damcay maxal buu samaystay odaygan weyn ee addoonka ah ayuu igu maxlalay habeenaan la bariyey
kadib waxaan u maana wuxuu igu maqan yahay yuduqa aabbaha dib ii soo ceshaday oo mar labaad ii guursaday saasaad ku dhalatay saasaad ku idan muxuu noqday waa wiil maxlal ah maxal ku dhashay waduqan wiilkiisana nasab buu noqday asaga dhalay si toos ah hawsha waxa kala saaray hal oday reer ibn mudlaji ah waxaad marka fahmi kartaa nimankan qoyskan ma aha sayidina umar qaa'if buu ahaa aad hawsha ugu dheeray aan iskaga tagnee qisada khatar ah fa inta daacaya marka DNA bay barataaye waxa weeye hidasooci reer ibn mudlaji DNA wax ka khatarsan DNA wax la fiiriyo nafta kaaga baxo indhaha ku cadaadano ma la faaro ku kala lagu celiyo weeye nin halkaa soo socdo ma dhihi kartaa wiilkan ninkaas dhalay soo socda ka hogaamin hayana waa aabihi awoodtiisa waxa la xamili kartaa ma